الرحمن الرحيم waa mar kale iyo casharadeen imtixaanaha ahaa ee ku saabsanaa barashada kombiyuutarka. casharkan wuxuu bilow u noqon doonaa casharo imtixaana ah oo ku saabsan barashada html-ka. ugu horeyn haddaan ku bilowno waa maxay html. kelmadda html waxaa laga soo gaabiyey ama ay u taagan tahay hypertext markup language. waxaa loo isticmaalaa in lagu create gareeyo webpageska ama websiteska iyadoo la isticmaalayo qoraal caadiya. html-ku maaha mid adag balse way u fududahay qofka programmerka ah ee doonaya inuu website ku sameeyo iyo qofka ardayga ah ee baranaya, labadaba way u fududahay. markaa website kasta wuxuu ka kooban yahay html files. html fileskaas oo midba midka kale uu leeyahay link. haddaad dooneyso inaad sameyso ama aad edit gareyso html file waxaad isticmaali kartaa text editor kasta waad isticmaali kartaa, tusaalahaan notepad oo kale oo isagu windowska la socda, ama waxaad isticmaali kartaa notepad plus plus oo ah software free oad kasoo download gareysan karto google-ka. sidoo kale waxaa jira software kale oo isna loo yaqaano sublime text oo isaguna aad ku edit gareyn kartid ama aad ku sameyn kartid waxaa loo yaqaano